halka sida tooska kala soo hadlayno waa mawlaca Allah u naxariistay Xaaji Daawud Cilmi Cariif oo ay galabta isugu yimaadeen dariiqada saalixiyada sida u jeedaan galabta halkan waxaa ka socda baraabax lagu xusayo Allah u naxariistay Xaaji Daawud Allah ha u naxariistay weli mawlaca Xaaji Daawud waxaa ka socda banaabaxa dariiqooyinka ahlusunna wal jamaaca oo ay ku xusayaan samafale Xaaji Daawud Cilmi Cariif oo 12kii bishan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. xaajigeena Ilaahay u naxariisto naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelo wuxuu ahaa Abu Dacaam anaga dhan aabihiina ayuu ahaa aad ayaan ugu murgoonay magoo dhintay Ilaahay u naxariisto wuxuu noo qabo jiray cidnoo qabato ma arkin xirteena hadaan nahay waan ka xunnahay xaajigeena dhimashadiisa Ilaahay u naxariisto jannadan Allah geeyo xaajigeena Ilaahay u naxariisto wuxuu ahaa dadka masaakiinta mid ku dadaalo mid xirto ku dadaalo salaadana aad ay u jeclaa galabta mawlaca waxaa soo buuxdhaafiya dariiqada saalixiyada oo qayb ka ah dariiqooyinka ahlusunna wal jamaaca waxayna banaabax lagu xusayo Xaaji Daawud ee ku qabteen mawlaca xaajiga waxaana xusid mudan in maalintii shalay ahayd halkan ay soo xaadireen dariiqada qaadiriyada iyo saalixiyada waxaana galabta mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah culimada saalixiyada kuwaas oo aad ugu sheekeeyay wanaagii Xaaji Daawud Cilmi ka soo qayb galnay oo diyaarnahay tacsiyadii Xaaji Daawud Cilmi sagootintiisi Xaaji Daawud oo ahaa ahlulaahi mu'miniinta ku kaalmeeya masaakiinta daryeela diinta Ilaahay tiisa faafiyo عالمينta u kaalmay caabidiinta u kaalmay ashraafta dhawra dadka dhawra masaakiinta masaajidada dhisa dadka u baahan oo nasiib Ilaahay uga dheena soo xijisii jiray aago ay waqtigiisa dhamaaday marka sagootintiisi aan isugu soo xaadirna galabta hadradan aad maqlaysiin waa sagootintiisi Allah u naxariisto jannadina Allah ka waraabiyo alxamdulillah ilaahay waxaan weydiinaynaa in ilaahay ninkaas u naxariisto annaguna gadaashiisa ilaahay nooga naxariisto dambigeena ilaahay isku dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa awaakhirtii tacsiyadii xaajigii weynaa ee ahaa iftiinka diinta islaamka oo meeshiisii ay ahayd manbacul diini waddariiqa wa manbacul culuum waxay ahayd marka meel diinka Ilaahay lagu baranaayo ayuu sheekha ku dadaalay inuu nooleeyo gobolkan banaadir kaligiisna ma ahayne gobolada dalka dadkii ka diin qaaday ayaa sida badan gobolada aadayay mawduucyaalna waa ku lahaa sida sheekha aan afkiisa aan ka haayay dadkii meeshiisa imaan jiray ayaan ka mid ahaa Xaaji Daawud wuxuu ahaa muciinul fuqaraa wal masaakiin fuqarada iyo masaakiinta ayuu u kaalmeyn jiray wuxuu ahaa dabeecad oo bashaashatul waji ayuu lahaa weligiis wuxuu ahaa nin nasiixo badan abul fuqaraa wal aytaam ayuu ahaa waxay ka socotaa siyaarada degmada Kaaraan gaar ahaan mawlaca Xaaji Daawud sheeqeen Allah u naxariisto jannada firdaws Allah ka waraabiyo siyaarada waxay ka socotaa mawlaca Xaaji Daawud banaabaxay maalintii lahaad oo siyaarada si toos ugu socoto haddana aan taaganahay mawlaca Xaaji Daawud sheeqeen Allah u naxariisto jannada firdaws Allah ka waraabiyo siyaaradana waa sii socotaa ilaa aawa ka birin waa sii doontaa hadii Ilaahay yiraahdo halkani waa mawlaca Xaaji Daawud gaar ahaan degmada Kaaraan oo ka socoto ziyaartii xaajigeena Allah u naxariisto qabrigiisa Allah waasiyo halkani waa ziyaarta 6 biri ayay socotaa haddana Ilaahay ayaantan waa soconaysaa caawadana dhafar ayaa jiro biri kalab oo jimcaha ayaa lagu wadaa inay mawlaca xaajiga ay soo gaaraan dariiqada Axmadiyada oo kamid ah dariiqooyinka ahlusunna wal jamaaca ee durqa suufiya waxayna banaabax weyn oo lagu xusayo xaajiga iyaguna ku qaban doonaan mawlaca xaajiga ayadoo xusid mudan tahay kalabta iyo shalay kalab halkan inay soo galgaareen dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada saalixiyada
iyo dariiqada saalixiyada. daa'uud ayaa ahaa samafale u sinaa dhammaan dariiqooyinka culimmada ahlusunna waljamaaca, wuxuuna ahaa mid u samafala cid kasta oo ku abtirsata culimmada ahlusunna waljamaaca ee duruqu suufiya. saadaam cabdulle siyaad, hoyga diinta, magaalada muqdisho.